waxaa wejigii afraad galay deeqihii biyaha ahaa ee boqor cismaan aw maxamuud buurmadow ka waday muddooyinkanba deegaanada kala duwan ee degmada garadaga deegaanada tuurka iyo dhoobacantuuga ayaa maanta la gaadhsiiyey 10 booyadood oo uu boqorku kaga jawaabayo dhawaaq biyo-la'aaneed oo deegaanadaasi ka soo yeedhay iyadoo ay deegaanadan deeqaha la gaadhsiiyey maanta ay ku sugnaayeen reer guuraa xoolo dhaqato ah oo ka kala yimi gobollada sool nugaal togdheer iyo saraar waxaana deeqaha biyahani deegaanadaasi loogu talagalay si habsami ah u gaadhsiiyey ururka gayfo oo deeqda biyahani boqor cismaan aw maxamuud buurmadow u soo wakiishay gudoomiyaha ururkaasi cabdisahal jaamac xasan iyo gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi siciid aadan siciid ayaanleh oo deegaanadaasi ka hadlay ayaa ugu horeyn deeqahan istaba joogga ah uga mahadnaqay boqor cismaan aw maxamuud buurmadow sidoo kalena baaqyo kala duwan oo qaylo dhaana diray waxaanu joognaa tuur cabdulle ama tuur ee meesha la yiraahdo waxaanu wadnay baryahanba biyo dhaamis uu waday boqor cismaan buurmadow annagoo ah ururka gayfo waxaan oo soo wakiishay 10 lowdhow biya 10ka lowdhow biya waxay ku socdeen meesha la yiraahdo oo ugu oonka badnayd ahayd dhoobacantuug markaan la xiriirnay waxay noo sheegeen in geelashu badan yihiin oo ay joogaan tuurkan iyo dhoobacantuug labadaba markaanu qiyaasnay ee aan xaaladii u kuur galay waxaan ogaanay dadka ugu badan joogaan tuur waxaanu ku shubnay 6 lowdhow biya waxaanu dhoobacantuugna u reebnay 4 lowdhow biya gudoomiyaha magaalada tuurka oo run ahaantii shakhsi aad u wanaagsan dadkana soo dhaweeyay ka mahad sheegteen ayaanu barkadiisa ku shubnay booyadaha iyo saxaafadda iyo howlwadeennadu ismay soo gaadhin laakiin waxa ay ku jiraan barkadiisa gudoomiyaha hawshaasina saasay ku dhantay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaanu kulay qoraxdo goor gaabana casar baan hadda taaganahay dhoobacantuug waxaanu deeqdii biyaha aan maalmahanba wadnay deeqdaas oo noo soo wakiishay boqor cismaan aw maxamuud buurmadow waxaanu qaybinaynay maanta 10 lowdhow biya 10kii lowdhow biyaha maadaama bancadde aad loogu soo hayaamay dhoobacantuug iyo labada tuur aad loogu soo hayaamay saan hore u sheegnay waxaanu ku soo shubnay 6 lowd tuurka afartii kalena waanu dhoobacantuug bay lagu shubay baaqii boqorka reer dhoobacantuug u direen ayuu ka soo jawaabay isla markiiba biyina uu soo bixiyay anaguna waanu soo gaarsiinay intaas kadib waxaanu ka codsanaynaa cid kasta oo u damqata bulshada reer Soomaaliland meel kasta joogtaan waxaanu idin soo gaarsiinaynaa baaqa dadkaasi biyo la'aan bay ka cabanayaan noona muuqata waxay u dhintaan waa raad say noognaay nolosheennu 75% waa biyo baaqiyo kala duwan bay dadkan diri doonaan horena way u direen maanta waxaanu joognaa magaaladii dhoobacantuug magaaladaas horena waan u nimi sababta nagu soo celisay mar labaadna dadka inta badan way iska fahmayaan waxa weeye haraadka iyo baahida deegaankan ka jirta ee ay sababeen soo guurtada laxaad kale ee ka soo guuray deegaanada kala duwan ay ka yimaadeen komidiga gobolka Sool Puntland ismaamulka Itoobiya Togdheer ilaa Oodweyne meel walba la isaga yimi baahidaas faraha badan leh ayaana keentay inaan mar walba ku soo noqono halkan maanta sida odayaashu sheegeen horta waxaan ugu mahad celinaynaa marka hore boqor cismaan aw maxamuud buurmadow boqorka horena u soo gaarsiiyay halkan biyo kadib baaq odayaasha soo guurtada iyo odayaasha deegaanka dhoobacantuug ay direen ayuu boqorku si degdeg uga soo jawaabay isagoo isla habeenkiiba nagu yiri dhoobacantuug gaarsiiya 10 lowd oo biyo ah sidaasaanu ku soo ambabaxnay oo ku soo shaqo galay muxuu ahaa maanta waxaana loo sheegay marka odayaasha deegaanka dhoobacantuug iyo soo guurtadaba waxay noo sheegeen dad kamida dadkii soo guurtada ahaa inay tuur meesha la yiraahdo inay joogaan halkaasaanu soo eegnay baahideedii baanu soo aragnay waxaanu isla qaadanay halkaasi inay qaadanayso 6 booyadood oo biyo ah saakaanu ku soo shubnay iminkana waxaanu joognaa dhoobacantuug 4tii hadhay baanu ku shubnay iminkana sida odayaasha halkan jooga ay ka dhawaajiyeen nin walbaaba sida la og yahay ninka uu wax ka helayo iyo ninka u damqanaya
ayuu baaq u dirayaa odayaashani siday sheegeen waxay baaq u direen 3 nin bay baaq u dirayaan 3 nin oo kala ah speakerka ama gudoomiyaha baarlamaanka mudane Cabdirasaaq Khaliif iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Saciid Mire Giire iyo Maxamuud Xaashi Cabdi 3 nin bay baaq u dirayaan oo ay markaa ugu baaqayaan sida boqorkuba u soo caawiyay ee biyaha uu keenay isagoo u damqanaya dan gaarana aan ka lahayn inay 3 oday carabaaban oo yiraahdeen war nin walba ninka noo damqanaya waanu naqaanaa 3 odayna waxaanu baaq ulus ugu diraynaa inay dadka deegaankan ay soo gaarsiiyaan baahida biyooda hayse wax ka soo daboolaan ilaahay baa baahida biyo daboola bulshada reer guuraaga ah ee deegaanadaasi ku sugan biyahana sida rasmiga ah loo gaarsiiyay iyo maamulka deegaanadaasi ayaa iyana dhankooda si isku mid ah ugu mahadnaqay deeqahan biyaha ah ee uu boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow soo gaarsiiyay marar badan sidoo kalena baaqyo qayladana u diray mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin ay carabaabeen oo kala ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golahaasi Saciid Mire Faarax iyo siyaasiga weyn ee Maxamuud Xaashi Cabdi sida hadeer laga waramay meeshan waxa weeye waa Tuur Cabdulle waana la ku soo hayaamay abaar baa wadanka haysata waxa ugu badan ee ugu sii xumina waxa weeye biyaha hadii aanay biyo jirin de wax shaqeynayaba ma jiraan oo biyo waa nolosha koobaad marka cid noo soo gurmatay oo biyaha naga soo caawisay ama soo dhaxmartay dadka ama wax u soo geysatay waxa noogu soo horeeyay madow 3 lowd oo hore uu noo keenay haddana wuxuu noo keenay 6 lowd oo xoolaha ah marka iyaguna waa sida marka waxa istaba maray de baabuurtu ogtiin oo dhulka xoolaha ceelasha haysta ama riigaga habeenkii bay biyaha shubaan booyadii shubtay booyadii xalay shubay iyo macnaha hadeer saxaafadan aanu ka hadlaynaa way istaba mareen waqtiga noo saamixi waayay booyaduhu habeenkii bay galaan oo shubaan biyaha maalin ma gali karaan dadka soo guurtada soona yeeli soona wurwud ayaa laga soo guuray dadkuna waa farbadan yahay sida odayaasha hore ku sheegeenba xooluhu waa jilicsan yihiin hadda Tuur Cabdulle aanu joognaa biyana waa lagu shubay waana lagu kala hagaajinayaa wixii jilicsan ayaa hadda 6 hore ee dhacay ee hadda uu ninka Cismaan ku kala hagaajinaya dadka uu meesha u hayay mas'uulka ka yahay tuuladiisa anaga u dharay guddigu naga qabtay wuxuu waraga basuu kala jilicsan yahay aad iyo aad baan isaga uga mahadinayna ilaahay baa mahad iskale dhalinyarada gurmanaysa ee ordaysa ee hadda waqtiga koob duhurnimo soconaysana iyaguna ilaahay ka abaalmar boqor Cismaan Buurmadow aad baan kugu mahad celinayna boqorkii jirana noqdo iyo macnaha boqorka waxaan uga mahad celinayna macnaha inuu 6 booyadood ayna soo gaareen 3 hore oo macnaha yana ay jiraan oo macnaha in la soo Tuur Cabdulle maanta ay saacadu tahay adeer koodii duhurnimo waxaana iminka halkan aan ku haynaa isugu nimi biyaha boqor Buurmadow uu bixiyay oo 9 lowd oo 3 hare u dhacday 6 hadda dhacday aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa iyadoo Soomaaliland wax mucaawimo ka arag oo hore haday hay'ad tahay haday dawlad tahay iyo abaarta iminka dhacday cusub aanan wax hore oo Soomaaliland ba ka socdo hore aanan arag 9 ka lowd isagu bixiyay mooyaan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa una soo dhaweynayna gudoomiyaha tuulada Dhoomactuug waxaan joognaa tuulada Dhoomactuug oo ka tirsan degmada Garadag ee gobolka Sanaag waxaanu mahadnaq aan u soo jeedinaa boqor Cismaan oo Maxamuud 40 kaliya ma aha biyuhu noo shubay biyo ka horeeyay halkan aanu hadeer joogno barkadan aanu joogno iyo gaarigan halkan aanu joogno biyo ka horeeyay ayuu noo keenay 10 ka lowd hadeer qaybiyayna markii hore annaga 10 ka lowd ugu soo baxaano qolada reer Tuur baan nagu soo qaylisado tiri haraad baan nahayo gelasha xagga gobolka Sool ka yimi kuwaas 6 looga gooyo 4 lowd baan annaga soo gaaray 4 lowdna waanu gaar ahaan waxaan kala baaq u sii diraynaa gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirasaaq iyo gudoomiye ku-xigeenka Giire waxa iyo Maxamuud Xaashi dadka wixii ugu tala gasheen
ila nin walba gurigiisa wuu og yahay dee dadka magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq farax jaamac calas waxaanu nahay dadka geelasha ka soo kaxeeyey bariga laascaanood meesha tan aanu nimi ah bancadde dhul badan baa lagaga yimi habar jeclo iyo dhulbahanta labaduba way buuxiyeen dhulka annagu waxaanu ka soo guuray taleex gambadhe bariga laascaanood iyo goori guumays geeli burco haddii ilaahay ku roonyahay habar jeclada ma jirtay deeqda boqorka wayna soo gaadhay boqorkana 100% baanu u mahadnaqaynaa si fiican buu yeelay noloshu bilowaadanku waa biyaha markaa waxaanu leenahay ama boqorka ha noqoto ama dowladda mas-uuliyiinta dowladda ha noqotee hana loo soo kordhiyo oo farqulida fal ma dhaqdaa la yidhi deeqdu ay noqonayno intaa boqorka ahe mas-uuliyiinta maamulka dowladda Soomaaliland oo ka mid yahay Cabdirasaaq uu ka mid yahay Maxamuud Xaashi geer ka mid yahay haddii ilaahay ku ruuyo cid kastoo dadka ama la dhalatay ama deegaanka kana ama dowladda xil ka saaran yahay waxaan u baahannahay in sidaas oo kale ummadda loogu keeno ragga geelasha gobolka Sool ee meesha jooga odayaasha ee ka tirsan waxaan salaamayaa beesha aanu meesha ugu nimi waxaan dhammaanteed ama miyi ha joogta ama magaalaha joogtee waxaan salaamayaa mas'uuliyiinta soo dirtay biyaha kan caawimada ku mahadsan yihiin boqor buur madow waa ku mahadsan yahay halka kan dadku dhibaatada uu qaba ee ka cabanaya waa un haraadka halkan aanu taaganahay waxa weeye Dhoobacantuug laga xukumo deegaanka degmada Garadag muddo waanu joognay abti codkaygii horena boqor buur madow ama boqor Cismaan waad haysaa halkan ay ahayd biyihii hore waa kuwiina soo gaadhay kuwan maantuna waa noo yimaadeen bagcadan hadir gaadhiga iyo aanu tubanahay intii biyihii hore noo yimaadeen 100 ratiba ku furraa saaka iyo subaxii ka horeeyayba haddii allaba ku roon abti halkaa waanu kaaga mahad celinaynaa subaxba meel baa la joogaa kal hore geelaaga damcaan wada joognay markii uu hayay ninka la yiraaho magan xaaji warsame abti adigana waa salaan iyo bogaadi iyo mahad celinba waanu ku soo diraynaa waxa weeye de wadanku waa wadanka ragga adiga iyo de wixii uun kale uun baa xil ka saaran yahay abti inaga hawsha hadalkeenu waa intaasaan ku dhaafayaa Cabdirasaaq Khaliif aniga waa adeerkay waxa weeye de nin waliba maanta dalka waa ka warhayaa ummadii oo dhan baa isu timi hawd iyo bari iyo nugaalba waa laga soo guuray geeltiruhu wuu haraadan yahay reer guuraagu waa haraadan yahay banaan halkan oo hadhaana dhulkan joog jiraa Maxamed Gumburi Bulsho TV Garadag